Okay, asxaabay soo dhawaada. Cashirkan hadda meeshaan aan marayno waa macnaha primary text. Waa cashirkii aad macnaha ku qori lahayd copy ama ad copyga meesha ku qori lahayd. Marka cashirkan waa cashirka macnaha loogu talagalay in aad si fiican u fahamto ayaan rabaa. Because haddii aadan fahmin ad copy wax la dhaho, qoraalka aad qoraysid ayaa macnaha 90% boqolkiiba xayeysiintaada ka dhigi karo xayeysiin shaqeyso iyo xayeysiin aanan shaqeynin. Marka waa in aad la socoto waxa meesha aad ku qoraysid waa ina abwaan noqoto waaye haddii hadalkan kuusoo gaabiyo. So marka wax yar inaan meeshan macnaha kugu sharaxaan rabaa intay ka kooban tahay. So haddii aan macnaha meeshan aan ku kala saaro waa 3 ama 4 qaybood inaan u kala saarto. Waa qaybtan koowaad oo macnaha curiosity ah, oo macnaha curiosity waxaan ka wadaa inaa macnaha wax adiga xiise aad abuurto. waa wax koowaad oo meesha aad ku qoraysid waaye. waa inaad macnaha wax xiiseyna aad abuurto oo qofka maskaxdiisa soo qabto ama soo jiita inaad meesha ku qorto waaye. Qaybtan labaad oo macnaha ku xigto qoraalka koowaad waa kaas. Qoraalkan labaad ayaa wuxuu yahay in macnaha waxa ay yihiin inaad macnaha haddana aad ku xijiso. Kooda hore waxaad meesha ku qortay wax adiga qofka maskaxdiisa soo jiita, kadibna waxa meesha ku qoraysa waxay yihiin waxaan ama waxa xayeysiinta waxay tahay inaad ku qortid oona aad u sii dheerayn. Kabacdi ayaa meeshan waxa ku qoraysaa benefitka. Marka wuxuu yahay kaba soo qaad benefitka macnaha benefitku waa hadda waxaad hadoo kale kaba soo qaad toy ayaad macnaha rabtaa inaad benefitkiisa sheegtid. Marka waxaad dhigi kartaa benefitka macnaha dadka qaar waxay ka hadlaan benefit, marna waxay ka hadlaan feature. oo featureku macnaha waxa waa inta wuxuu ka kooban yahay battery lifetime intuu yahay waxaas waaye macnaha featureku. Benefitkuna macnaha waa benefitki. So waxaa fiican marka benefit inaa meeshan ku qortid oo kale. haddii marka benefitka aan kasoo qaadano oo kale guryaha macnaha la dhisayo oo kale, sida maadaama guri aan macnaha aan xayeysiinin inaan guryo dhisno oo kale, benefitku macnaha wuxuu noqon karaa oo kale in aad sheegtid guri qurux badan inaad macnaha aad ku noolaa doontid. waa benefitku, guri qurux badan inaad ku noolaa doontid. Featureka oo macnaha anagana feature kama sheekeynayno, laakiin waa inaad ogaataa inaad curiosity aad meeshan ku abuurto, kadibna macnaha waxa ay tahay, kadibna aad ka sheekayso benefit, kadibna haddana aad kusii xiji kartid benefit kale iyo what it is iyo waxaas haddii aad kusii xiji kartid. Ama meeshan oo kale waxaa loogu qoraa linkiga oo qofka oo meesha uu click ku dhihi lahay iyo waxaas camal inaad kusii diyaarsato, kadibna more oo benefit ama curiosity ama macnaha inaad meeshan kusii xijisid. Marka waxaan rabaa inaan soo tuso wax yar qaabka u shaqeyso oo si aan iskugu xiji lahayn cashirka ku xigo intaana macnaha aana create gelin waxa meesha ku qori lahayn. Marka insha Allah tacaala cashirka ku xigo ayaan isku keenaa.